maamulka cisbitaalka xoogga dalka ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya qalabka caafimaad oo uu iibiyay cisbitaalka si loogu adeego ciidanka xoogga dalka oo imika dib u dhis ku socdo. Hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka Dr. Mahad Cabdullaahi Nuur ayaa sharaxay qalabka uu madaxweynuhu cisbitaalka u iibiyay iyo waxa uu ka tari karo baahida cisbitaalka ka jirta. runtii halkan waxaa maanta noo keenay nasiib wanaag qalab aad u muhiim ah oo isbitaalka ciidanka xoogga dalka uu baahi weyn u qabay muddo badan uu ku taamayay inuu helo qalabkan oo kale. runtii waxay noo tahay farxad weyn qalabkan waxaa noo soo dhiibay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii waayahan dambe dadaal ugu jiray sidoo ciidanka dib ugu dhisi lahaa sidoo kale sidoo ciidanka goobihiisa caafimaadka uu hagaajin lahaa. isbitaalka xoogga dhaawacyada marka la keeno waxaa isbitaalada qaar bareebada ah isbitaalo kale loo diri jiray laakiin maanta wixii ka dambeeyay isbitaalka ciidanka xoogga wuxuu leeyahay saaladii qaliinka bukaankii meeshii oo yani lagu qali lahaa dhaqaatiirtii qali lahayd waa haysanaa qalabkii waa helnay yani maanta maba jirto qof oo ciidanka xoogga dalka in ama bareebad la geeyo ama meel kale la geeyo yani maanta baahidaas oo yani runtii aad baahi taagan maanta alxamdulillah madaxweynahan uu buuxiyay. sidoo kale agaasimaha cisbitaalka xoogga dalka Khadiija Imaan Caynte ayaa sheegtay in tani ay muujinayso sida uu madaxweyne Farmaajo ay ugu go'an tahay dhismaha ciidanka xoogga dalka iyadoona xustay in qalabkani madaxweynuhu soo gaarsiiyay isbitaalka ay suuragelinayso in toddobaad gudihiisa ku shaqeeyo. waa markii ugu horeysay aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna madaxweynaheena sida uu noo ballan qaaday iyo sida degdegta ah uu uga soo jawaabay. waxa kaleetooda dhiirranimada uu meeshan imaatinkiisii wax weyn noo tartay waxay noo tartay bukaankii waxay yeesheen moral in madaxdooda soo ziyaaranayso markuu ziyaaradiisa ka bacdina lacag uu soo dhiibay oo nin walba gacanta laga saaray nin walba wuxuu noqday markay dibadda wixii uu rabay inuu gadan karo uu yeelan karo fariinta laga fahmi karo inuu ciidamada ihtimaam u hayo inuu rabo inay ciidamadu dhismaan inuu rabo ciidankeena bariisamaadkii siduu ah inuu ku soo noqdo insha Allah waana ku soo noqonaa siduu hadda ku wado. bishii Maarso ee sanadkan ayuu madaxweyne Farmaajo tagay isbitaalka xoogga dalka halkaasi uu kula kulmay maamulka isbitaalka iyo hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga oo uu kala hadlay sida isbitaalka dib loogu howlgelin karo waxaana warbixin la siiyay ku jirtay in isbitaalka aysan jirin wax qalab caafimaad ah oo uu ku shaqeeyo taasi oo keentay in madaxweynaha qalabkani uu iibiyo isbitaalka xoogga dalka. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha caasimadda Muqdisho, Somali Cable TV.